السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل فيكتوريا سيبر خايا شمال باتشوكتين وحان فرديا تراس يرو بالكون وآخر كيغا وعربا إن دليردو إيفنتس أو شكي 6 ساعات أيان ساكي هالكا فرديا هالكا قرعدي هالكا فرديا وحانو فرديا I was watching impressive wax aad iyo aad u qurux badan ayaan daawanay waxaan daawanay geedka iyo shimbirta arabaa inaan tus hadday soo duulaysa shimbir qoonley ah ayaa maanta idil geedkan daaqadeeda ku aadan guri ka dhisanaysa way ka soo duushaa geedka waa u jeedin waxay aadaa geedo kale waxay soo gurtaa dhir marba laan bay soo qaadaa laantii ay soo qaaday afkeeday ku soo qaadaysaa waxay la imaanaysaa geedkii kale oo aan raabi gareynayo ay guri ka dhisanayso buul bay ka dhisanaysaa yar way soo socotaa waan i tusayaa kadib waxaan rabaa inaan dhallinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan la hadlo shimbirtii dhir bay soo guraysaa halkaa hoosey joogtaa dhir jilicsan laamo jilicsan ayay soo gurtaa way soo duulaysaa balanbaalis badanaa duulayso waa taa balanbaalista dhirtii ay soo qaaday afka ku soo qaaday geedkaanay keentaa geedkaas ayay keentaa ayay maanta dhan aqal ka dhisaysaa taasi micno weyn baa ku jiro la natura wax la dhaha jiro ilaahay wuxuu yiri hatta daaba rizqi caleeya the nature ka socdo waxa weeyaan shimbir baa geed laan ka soo jaraysa geed kale keenaysa waxaan nigala hadlayaa waa kaas marka waxaan nii sheegayaa shimbirtii hooy bay dhisanaysaa ay qoraxda kaga gambato roobka kaga gambato waa taa geedkii way keentay halkaasay koraysaa fiiriya afka geeday ku haysaa fiiriya waa taas geedkii koraysaa aqalkeedii dhisaysaa okay marka waxaan nii sheegayaa xayawaanku waxaan u dheernahay aqli saasay tahayna waa aayad ilaahay wax noogu sheegay nin baa walaalkii dilay نبي آدم وبدكي قابيل ولكن دبر كوكو ستي سيو كدوغو قرنوا وعلا كل مي توكي كلا دنتي قد أخذي عاصي هل كاسو عاسك كيمي مركا كوني عفر بغرصنا كومي تشرنو غرانك وحال بالوشي أفتلون مو رسول كل وشي أنه ما أنتو وحانو تاغن هاي وعمري aan ku jirno inaan aqal dhisno iska dhaafeenan aqaladii dhisnaa burburino inaan taariikhdii burburino inaan isdilno inaan isbaabi'ino jahli iyo qabiil ku dhaqmano diinta islaamka ka tagnay iyo taariikhda islaamka leh marka waxaan u sheegayaa jiilka saddexaad big vision baan daawanay comprehensive cooperative wax qabad wax soo saara aqal bay dhisanaysaa shimbir okay annagu ka bilaab Somaliland sayla meel walba boorame meel walba ilaa hoos soo tag waanu garan la'nahay dhir baan leenahay wax walbaan leenahay material prime aan leenahay in aan dadka masaakiinta aqal u subin jingada wali la gadaa lacag baa la sugayaa oo wax lagu cuno inventory manihin wax ma alifi karno dhirta iyo geedaha iyo qoriga aan haysano iyo dhagax aan haysano iyo buurasho mintaan haysano inaan wax qurux badan ka soo bilno ma garano why they are not imprenditive ma inventor ma wax ma alifi karno maanta haddaan ab origin ka soo qaata Australia guriyay dhistaan dhirtooday ka dhistaan
tarbilo ma qabaan wiishas ma qabaan guryo qurux badan ay dhisaan waxay dhisaan xataa webiga korkiisa balakutiga korkiisa webiga leeg wax walba duya balafitay ka sameeyeen qoryay ka sameeyeen guryo ay dul degaan so maantu soomaali waxay u badan tahay wax la dhaho bandiid waa bandiid ninka qabiiliga landheerka geelu dhacaa dumaru dhacaa xoolu dhacaa guryo dhacaa wax walbuu dhacaa maryaantana iyada iska daaba macal masaajidyada iyo habla ku kufsadeen marka waxa weeyaan there is no peace astaanta lagu garto nabadda waqooyleyda duulaysan tusay maanta hargeysa tag boorama tag laascaanood tag gabiley tag meelba tag seylac tag waxaad tagtaa boosaaso garowe gaalkacyo meel walba tag ilaa koonfur galbeed ilaa waxaad tagtaa webiyada ilaa ma arkaysid qoonley ma duuli karto dhagaxa lagu dhufanaya waa la dilaya waa la gaadanaya waa la cunaya waxaa la cunayaa shimbirtii rasuulka badbaadisay uu rasuulka ka dardaaray peace convention soomaaliya ma jiro shimbir duulaysa ma arkaysid xayawaankiyaa qaxay maroodiyaa qaxay libaaxiyaa qaxay shabeelkiyaa qaxay giddi waa la wada qaxay marka hadalkaygu wuxuu ku socdaa dhalinyarada jiilka saddexaad waad u jeediin yurubaad joogtiin holan kuwa jooga leegiya arkaan shimbiraa dhex fadhiso meel walba kan aniga waxaan xasuustaa waagii soomaaliya wallaahi waxaan ka fajacaan rabaa maanta inaan nii sheego aniga waxyaabaha dhan baan ka kalumeyn jiray meel baan tegay eylaan joogay bandarbeelaan joogay boosaasaan joogay caluulaan weligay ma arkin shimbir gabyaana shimbirahan beeraha duusha ma arag xamaraan joogay liidaan joogay segunta liidaan joogay jaziiranta weligay ma arag shimbir gabyaana duuleys laakiin waxa cajiib ah marka waxaan ku arki jiray shimbiro gabyaan soo degay waxaan kaloo shimbiro gabyaan ku arki jiray baraawe oo socdo shimbiraha caday badda dul maro ee tramontaa soo baxo ee kalluunka cuno waxaan kaloo haddaan been sheegayn aan shimbiraha ku arkay waxaan ku arkay zayla way duulayaan nabad bay haystaan saacadadiin cibaado iyagaaba ka buuxoo degan marka waxa weeyaan shimbirtii waxay garatay inay hooy dhisato dowladaha puntland somaliland jubbaland meelba ma garan inay hooy u dhisaan dadka ay mas-uuliyada u hayaan guri ma dhisaan yurub aragtay wada guryaha ku jirtay shirkadaha dowladdaa dhisto dowladdaa guryaha bixiso shirkadaha bixiyo guryaani la siiyey dad aan hooy loo sameyn dad aan la garan inay arkitektayaal injineeryaal soo baxaan oo iskuol loo sameyn waxaan ni tusayaa shimbirtii hadda geedkii gashay ujeedaa geedkii ayay wax kusoo beeraysaa hadday soo baxaysaa soo duulaysaa waxay aadaysaa geed kale ay wax ka soo jaraysaa marka dhirtiyaan leenahay dhagaxiyaan leenahay shamiintadiyaan leenahay dowladaas kushafiir shimbirta halkaasay tagtay way sii tegaysaa waxay aadaysaa geedkaa kale wax ka soo qaadaysaa gabal yaroo jilcan caleen yar ama geed yar tabarna ma haysato wiish ma kaxeen karto afkay kusoo qaadaysaa way soo laabanaysaa halkay kusoo laabanaysaa waana tusayaa markay wado marka waxaan ka hadlayay waxa weeyaan xayawaanku ilaahay aqli siin wuxuu gartay inuu guri dhisto inuu ficil la yimaado inuu noolaado inuu risiqa ilaahay ku faraxsan yahay maxaan u garan la'nahay inaan shacabkeenna ka fikirno hooy u samayno guryo u samayno guryo u dhisno iskuulaad u samayno isbitaallo u samayno waad arkayseen isbitaalka caasimadda hargeysa ku yaalla isbitaalka ugu weynay tani beriga ingiriiska la dhis inuu wasaq yahay inay gudaafadda in dadkii ay ku jiraan jiingado jiingadaha roojinay leeyihiin qoraxda iyo roobka waxaa laga qaadaa saritaan dadkii way wada bukaan cuduraan qabi jirin dhiig kar baa ku dhacay waxaa ku dhacay jalto waxaa ku dhacay sokor waxaa ku dhacay cancer waxaasoo dhan waxaa ugu wacan jiingadaha la degaya waxaasoo dhan waxaa ugu wacan infrastructure male waxaasoo dhan waxaa ugu wacan caafimaad ma haystaan waxaasoo dhan waxaa ugu wacan shaybaar ma haystaan waa meel walbo soomaaliya somaliland iyo soomaaliya way ka siman yihiin marka waxa weeyaan maanta aad iyo aad ayaan shimbirtaa yar ugu maqsuuday 3 saacadood aan daawanayay wallaahi bilaahi tallaahi aqalka ay dhisanaysa
ay mar walba soo qaadayso qori ay gelinayso meesha aaway marka raggii ilaahay aqliga siiyey raggan muslimka sheeganayo diinta islaamka wax walba ku dhan horumar ku dhan laysku salaamayo salaamu calaykum waxay ka dhigantaa salaam waxay ka dhigantaa nabad waxay ka dhigantaa raxmad salaamu calaykum allana waan isdilaynaa lafahaas jaraynaa dhibta soomaaliya haysato waxa weeyaan dhib aanu annagu fahmin ay shimbirahana maanta geedo guranayaan waxaan jeclaan lahaa hadda oo aan baarayay rabaa inaan nituso kor bay ka soo baxday waxaan rabaa inaan nituso sidii afka ugu wadato qori oo ay geedkaa saarayso ee ay wax ku dhisanayso ay mudul ku dhisanayso marka madax baan leenahay intellectual isku sheegaya nimankan diaspora mutacalimiin ah nin la yimid voluntariyaad in dalka lagu dhiso dadka hooy loo suubiyo ama iskuul loo suubiyo ma jiro waataa shimbirtii daawada geeday wadaa afkay ku wadaa daawada ilaah nigu dhaari fiiri geed bay wadaa geedkii gelisay ay ku aqalka ku dhisaysa war ilaah baa nigu dhaariyey ma xayawaankaa yaree shimbirteed daciifka ee laba baal ku duulaysa afkeeda ku shaqaysanaysa adikuna af miishaarnimo afka ku haysiin oo dadka isku diray munaafiqnimo iyo malcuunnimo ayaad garan laadeen dadka inaad dejisiin barakacayaasha la dejiyo guryo loo sameeyo iskuulo loo sameeyo waxbarasho la abuuro haastala victoria sempre waan islaamaya aad iyo aad ayaan dhalinyarada jeclahay inaan wax u tuso meel dhow la natura haddaa fiirisa dhirtasay u beeranta geedaha u beeranta ilaahay soo dunida u firaashay alxamdulilah wana shukri ilaah beeraha iyo kalluumaysiga iyo wax walba markaan arko waxaan leeyahay war dadkani say wax ka yihiin adinkaa wax naga dhiman waxaa waaye jahil baa tihiin diintiyaad jahil ka tihiin cilmigii waxbarashada adduunka lagu dhisayaad jahil ka tihiin wax walbaad jahil ka tihiin soomaali waxaan odhanayaa waa bandiid tuug iyo tuug dhalay waay mac salaama